saaxiibayaal maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka. barnaamijkan qodobada aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah Israa'iil iyo Iiraan ayaa saacadihii la soo dhaafay isweydaarsaday madaafiic waaweyn oo labada dhinacba khasaare geystay. waxaannu falanqayn ku samayn doonnaa ilaa iyo hadda muuqaalada iyo sawirrada labada dhinac laga kala helayo. waxaan kaloo barnaamijka aynu ku dul istaagi doonnaa dowladda Maraykanka oo ciidamo dheeraada keenaysa bariga dhexe iyada oo xaaladdu ay hadda marayso meel aan laga soo waaqsan karin. waxaan kaloo barnaamijka aynu ku dul istaagi doonnaa arrimaha ku saabsan dowladda Bakistan, taageeradii dhowaan ay u soo bandhigtay dalkan Iiraan ee ku saabsan in haddii Iiraan lagu soo weeraro hubka nukleerka in dabcan Bakistan iyana ay hubkeeda nukleerka ay ku tugri doonto dhinacan iyo Israa'iil. bal marka hore barnaamijkeena aynu ku dul istaagno muuqaalada kooban iyo sawirrada ka soo kala imanaya labadan waddan ee ku aadan khasaarihii ka dhashay madaafiicdii saacadihii la soo dhaafay ay isweydaarsadeen. tusaale ahaan haddii aynu sawirkan ku hormarno waa safaaradda Maraykanka ee ku taalla magaalada Qudus. gebi ahaanba safaaraddan maanta albaabada ayaa loo laabay iyada oo safiirada ay sheegeen in hadda aysan awood aysan u lahayn in ay xakameeyaan duulaankan iyo weerarkan ka imanaya dhinacan iyo sidoo kale Iiraan, islamarkaana Israa'iil ay hadda doonayso in dagaalka ay ku soo jiido Maraykanka. safaaraddan maalmahanba Maraykanka waxa uu ka saarayay dhammaan diblomaasiyiinta aan muhiimka ahayn iyo guud ahaan shacabka Maraykanka ee halkan ku sugan iyo militariga dabcan halkan waardiyaha ka hayay. dhammaan hadda waxaa la leeyahay Maraykanka magaaladan Qudus waa uu ka saaray shaqaalihiisa iyo sidoo kale militarigii aan muhiimka ahayn. keliya waxaa jooga xoogaa yar oo ka tirsan ciidamada ilaalin doona dhismaha safaaraddan. waxa uu sheegayaa mid ka mid ah warbaahinta ka soo baxda gudaha bariga dhexe in la ogeyn ilaa iyo hadda halka la geeyey dhammaan shaqaalihii iyo safiiradii dabcan halkan ama diblomaasiyiintii halkan ka howlgelayay. walow maalin ka hor ama shalay duqaymihii Iiraan dabcan ay ku dhaceen meel u dhow dhismaha safaaradda Maraykanka ee ku taalla magaalada Tel Aviv, taasoo aan hadda marti gelin karin diblomaasiyiin kale iyo shaqaale kale oo dabcan safaaraddan Qudus ka imanaya. marka waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah in Yurub ama sidoo kale dalkooda Maraykanka loo celiyo. dhinaca kale 21 waddan oo Carab iyo Muslimiin isugu jira ayaa si wadajir ah u cambaareeyey duqeymaha Israa'iil ee ka dhanka ah dalkan Iiraan, iyaga oo ku tilmaamay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah iyo ahdiga qaramada midoobay. bayaan ay ku midaysan yihiin dhammaan 21 waddan oo dabcan isugu jira dalalka Carabta iyo kuwa Muslimiinta in ay ugu baaqayaan in degdeg Israa'iil ay u joojiso gardarada lana doonayo in wada hadal arrintan lagu dhameeyo. saxiixiyaashan warmurteedkan ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo ilaalinta xarumaha nukleerka. waxa ayna ku buuriyeen dadaalada diblomaasiyadeed ee hadda dabcan si curdun ah u bilowday in kor loo qaado islamarkaana lagu celiyo xaaladda bariga dhexe in aysan faraha ka sii bixin. goobaha nukleerka ee dalkan Iiraanna ee la beegsaday dabcan laga hadlo waxa laga yeeli doono. sidoo kale waxa ay sheegeen inay taageero u muujinayaan dalka Iiraan, iyagoo dabcan sheegaya in Iiraan ay tahay waddanka hadda ugu horeeya oo Maraykanka iyo xulafadiisa Israa'iil ay doonayaan in ay dabcan ay burburiyaan ka hor inta aysan Bakistan, Turkiga ama Masar aysan dabcan u dhaqaaqin. waxaa jira khubaro dabcan dalalkan Carabta iyo Islaamka ka soo jeeda oo horey u sheegay in qorshuhu Israa'iil uu marka hore uu yahay in ay dabcan ay burburiso waddankan Iiraan kadibna ay Bakistan u jeesato ka hor inta aysan Turkiga ama Masar aysan gelin. walow Turkiga uu ku jiro dalalka gaashaanbuurta NATO awood ahaan iyo sidoo kale military ahaan uu xoogan yahay inkastoo uusan haysan hubka nukleerka, haddana dadka Turkida dabcan markan waxay yihiin kuwa aan lagu soo qaadi karin weerar. halka dalka Masar iyo sidoo kale dhinacan iyo maamulka dowladda Israa'iil uu dhexmaray heshiis sanado ka hor oo Maraykanka uu dhexdhexaadiyey, kaas oo Maraykanka uu ku bixiyo balaayiin dollar oo sanadkii la siiyo dalkan Masar keliya loo laaluushayo Masar in uusan la dagaalamin Israa'iil. awood ahaan, tiro ahaan, cudud ahaan iyo ciidamadaba Masar ayaa dabcan aad u badan, taasoo aysan hadda Israa'iil marna aysan ku fududaan karin.
dhinaca kale haddii aad muuqaalkan hadda aad daawanaysaan aad fiirisaan waa muuqaal cajiib ah oo ku saabsan fashilka dhex yaalla gudaha Israa'iil iyo sida nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil ay dabcan ay u awoodi laayihiin inay qabtaan gantaalada Iiraan ay soo tuurayso kadib markii dabcan dhawaqa seeriga uu meel kasta Israa'iil gudihiisa qabsaday dadkuna ay gudaha ay u cararayaan waxa weeye nidaamkii difaaca hawada ee Israa'iil oo dabcan wax awood ah u yeelan la inuu qabto madaafiicdaasi haddii aad muuqaalkan kale aad aragtaan waxaa duubay dabcan ciidamada difaaca hawada ee dalka Iiraan kuwaasoo dabcan howlgal ku jira waxay ka hortegayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil oo dabcan dul heehaabayay magaalada Tehran ee caasimadda waddankan Iiraan marka waxa muuqaalkan uu yahay muuqaal ciidanka cirka diyaaradahan ay soo ridayaan Israa'iil waa Iiraan oo dabcan markan ku faanaysa nidaamkeeda difaaca hawada iyo ciidankeeda cirka halka muuqaalkii ka horreeyay uu ahaa midka ciidamada Israa'iil oo ku guuldareysanaya inay qabtaan madaafiicdan Iiraan ka imanaya Iiraan Israa'iil dabcan waxay ku faanaysay nidaamkeeda difaaca hawada inuu yahay midka ugu qaalisan adduunka oo dhan isla markaana awood weyn u leeyahay in uu dhulka soo rido dhammaan madaafiicda lagu soo weerarayo laakiin taasi hadda waxa ay u muuqataa in ay dabcan ay guuldareysatay dhinaca kale haddii aad eegtaan muuqaalkan hortina yaalla waxa la duubay shalay oo dabcan isniin ah waxa uu xaqiijinayaa ama uu dabcan uu muujinayaa in la bartilmaameysatay Iiraan ay bartilmaameysatay mid ka mid ah xarumihii ugu adkaa ee Israa'iil ay ku lahaayeen dhulkan la haysto ka tirsan reer Falastiin waxa weeye meeshan hadda la duqeynayo dhisme ciidamada Israa'iil ay haysteen oo ay dabcan ay ku dhibaateen jireen ama ay ka soo qaadi jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada ama weerarada ka dhanka kooxda wax iska caabinta ee reer Yemen taasoo dabcan muujinaysa in xaaladdu ay markan ay halkaas marayso marka madaafiicdan hadda Iiraan ay soo tuurayso markii hore gudaha Israa'iil buu ahaa hadda laakiin Gaza laftirkeeda meelaha lagu tuhumayo ama lagu arkayo saldhigyada ugu adag ciidamada Israa'iil inay ku leeyihiin ayaa la duqeynayaa si markan Iiraan ay culeyska ugu dulqaado kooxda wax iska caabinta dabcan reer Falastiin dhinaca kale muuqaalkan isagana haddii ama sawirkan haddii aad isagana aad fiirisaan waa dhismihii warbaahinta dowladda Iiraan ee magaalada Tehran waxa uu muujinayaa duqeyntii gelinkii dambe ee shalay oo siin ahayd ay ciidamada dowladda Israa'iil ay ku garaaceen dhismahan aad buu u burburay laakiin Israa'iil ujeedka waxay ku lahayd in ay dhegaha iyo indhaha ay xirto dadka reer Iiraan oo ay dabcan warbaahintooda keliya ee lagu kalsoon yahay dabcan ay ka xirto inay helaan ama inay gudbiyaan macluumaadka ku aadan howlgalladan socda ee Iiraan marka markii sidan ay duqeyntu ay u dhamaatay oo Israa'iil ay baraha bulshada iyo warbaahinta ay soo geliyeen inay gebi ahaanba warbaahintaasi ama telefishinkaasi ay burburiyeen durba meel kale ayaa dabcan warbaahintii ay ka soo hadashay iyada oo shacabka guud ahaan dalkaasi Iiraan ay ku farxeen oo ay yiraahdeen wax walba oo aad sheegtaan dhigaha iyo indhaha nagama xiri kartaan oo awood waxaan u leenahay wax walba dabcan in aynu ka hortagno dhinaca kale haddii aad fiiriso isagana muuqaalkan hadda hortina yaalla muuqaalkan waxa uu isagana uu muujinayaa gantaalada Iiraan oo si guul dabcan u gaaraya lakabyo badan oo ka mid ah nidaamka difaaca hawada ee taliska Israa'iil waxa uu madaafiicdan ay ku dhaceen ama xaruntan hadda aad arkaysaan ee gubanaysa waa mid ka mid ah nidaamyada difaaca hawada ee Israa'iil ay ku faanto aad buu u gubanayaa oo waxa la leeyahay nidaamkii haddii dabkiiba uu dhexmoonayo maxaa mataqaanaa lagu diirsadaa nidaamkii difaaca hawada ee Israa'iil ay ku faanaysay ayaa gubanaya oo isagii laftirkiisa ayaa dhibana ah oo la garaacaya marka dhinaca kale haddii aad muuqaalkan aad fiiriso waa ciidamada Israa'iil oo dabcan weerar ku qaaday mid ka mid ah xaafadaha ku yaala waqooyi galbeed magaalada Tehran ee caasimadda waddankaasi Iiraan magaaladan la weeraray waa magaaladan la weeraray oo la yiraahdo Tabriz waxay ku taallaa waqooyi galbeed ee dalkaasi Iiraan waxa sawirkan muuqaalkan uu muujinayaa dhismahaasi oo dabcan gubanay dhismayaal ku yaala magaaladan Tabriz oo dabcan gubanaya dhinaca kale
muuqaalkan la soo duubay oo dabcan xagal kale ka imanaya markan ayaa muujinaya in nidaamka difaaca hawada ee Iron Dome ee Israel uu ku guuldareystay mar kale inuu ka hortago gantaalada Iran iyada oo sawaariiqdu ay ku dhaceen caasimadda Israel ee Tel Aviv waa duqayntii xalay ilaa iyo waa shalay galab ilaa iyo xalay ilaa iyo saaka qaarkood soo gaarayay marka khasaare weyn ayaa dabcan halkan ka dhashay oo ciidamadan iyo nidaamkooda difaaca hawada dabcan u gaaraya magaalada la yiraahdo Tehran ee caasimadda waddankaasi sida aad sawiradan aad ka arkaysaan waxa lagu qabtay aas qaran magaalada waa aas qaran oo loo sameynayay 8 ka mid ah ciidamada cirka ee dalka Iran iyo ciidamadii difaaca cirka oo dabcan naftoodii ku waayay duqayntii Israel ay ka geysatay waddankan Iran sawiradan iyo muuqaaladii laga soo duubay aaskan qaran waxa uu muujinayaa kumanaan shacabka reer Iran ah oo la tiiraayeensan 8 saraakiisha ciidanka cirka iyo difaaca cirka oo dabcan duqaymihii Israel lagu dilay aad bay dadku dabcan ay u qiiraysan yihiin waxay muujinayaan in aan laga maaragtay joojin maalintii shanaad jawaabta ay Iran ay ka bixinayso xaaladahay ugu dambeeyay ee halkan dabcan aad bay waxay u muujinayaan kuwa khatara haddii aan dhinac kale aan eegno sawiradan 3D-ga ah ee ka soo baxaya dowladda Iran ayaa sheegaya in xarumaha militariga iyo sirdoonka Israel ay leeyihiin in aad loo burburiyay sawiradan iyo muuqaalkan ayaa muujinaya in dhismayaashan ay yihiin kuwii sirdoonka iyo sidoo kale militariga Israel ay lahaayeen dhismayaashan waxa ay ahaayeen kuwa sida ugu weyn loo waardiyeeyo oo ciidamada adag ee Israel dabcan halkan ay ka howlgalaan laakiin dabcan dhammaan ciidamadaasi iyo awoodii ay halkan taalay nidaamka difaaca hawada gabi ahaantooduba wax way awoodi waayeen in ay ka hortagaan oo ay dabcan ay burburiyaan aynu markan dhinaca kale eegno macluumaadka kale ee iyaguna ka soo baxaya bariga dhexe Mareykanka ayaa markan waxa la leeyahay waxa uu xoojinayaa joogitaankiisa dhinaca militariga ee bariga dhexe iyada oo ay jirto colaadan sii socota ee Iran iyo sidoo kale waddankan waa Iran iyo sidoo kale Israel wararka marka degdeg ah ee ka imanaya magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in ay jiraan hadda warar waaweyn oo soo baxaya in kulamo degdega Trump iyo maamulkiisa ay wada qaateen oo ku aadan sidii dabcan xaaladan loo sii tixgelin lahaa oo Mareykanka ciidamadiisii iyo shaqaalihiisii aan muhiimka ahayn ee markii hore uu ka saaray dabcan waddan kale uu geeyey laakiin hadda ciidamo kale oo dheeraad ah uu doonayo inuu gobolkan uu soo geliyo waxaan ognahay in laba ka mid ah maraakiibta waaweyn iyo diyaaradaha qaada ciidamada lagu arkay bariga dhexe waxaa sidoo kale bariga dhexe yimid ama dhaqdhaqaaq ka bilaabay markabka weyn ee USS Carly Finson la yiraahdo taasi waxay ku taalaa waxay yimaadeen badda waxaana sidoo kale waxaa sidoo kale la helay in markabka USS Nimitz la yiraahdo inuu isagana uu badda u yimid marka labadan markab waa maraakiibta qaada diyaaradaha saldhigyada dabcan ama garoomada ku dul yaalla waa mid ka mid ah maraakiibta waa laba ka mid ah maraakiibta dabcan Mareykanka marka dagaalada ceenkan oo kale ay jiraan uu geeyo gobolka ama meesha si diyaaradihiisa duulaya dabcan ay uga duulaan haddaba waxa la soo raray baa la yiri waxa laga soo raray badda koonfurta Shiinaha waxaa laga soo raray badda maraakiibtan oo loo soo dhaqaajiyey xaggan iyo bariga dhexe laakiin waxaan la go'aamin ilaa hadda tallaabada military ee Mareykanka uu doonayo inuu arrintan uu ka yeesho waxaa intaas dheer waxaa jira 3 maraakiib nooca wax burburiye ah oo iyagana dabcan la soo diray maraakiibtan qaarkood Yurub ay ka yimaadeen shalayna waxaanu ka soo hadalnay in diyaaradaha waaweyn ee haamaha shidaalka qaada ee Mareykanka lagu arkay in ay jawi aad u sarreeya iyagoo ku duulaya biyaha badda Atlantic taasoo dabcan muujisay in maraakiibtan Yurub in diyaaradahaasi Yurub iyo bariga dhexe ay u soo socdaan taasoo muujisay in Israel markan ay taagan tahay oo kaalmadii Mareykanka iyo xulafadoodii ay weydiisteen walow Mareykanka madaxweynahoodu uu dhowr jeer uu ku celceliyey in uusan diyaar u ahayn inay ku lug yeeshaan dagaalkan haddana waxaa la leeyahay Trump hadaladiisa maadaama ay iska hor imanayaan waxaa suuragal ahba in ay dabcan Mareykanka tallaabo military uu ku farageliyo bariga dhexe isaga oo taageeraya Israel
Israa'iil ayaa weerarkan hadda socda waxa ay u moodeysay markii hore in Iiraan aysan awood intan la eg 5 maalmood aysan jawaab ka bixin karin duqeymaha, laakiin hadda waxayba muujisay in Iiraan 5 ilaa iyo bilooyin ay awood u leedahay ka jawaabidda haddii lagu soo xadgudbo madax bannaanideeda. dhinaca kale xogayaha difaaca dalka Mareykanka ayaa amray baa layidhi in ciidamo dheeraad ah oo Mareykan ah loo daadgurayo bariga dhexe iyada oo ujeedku yahay in la difaaco Israa'iil. qoraal uu soo dhigay baraha Twitterka ayaa uu ku sheegay isagoo sheegaya in ciidamadan dabcan sida ugu dhaqsiyaha badan ay halkaas u aadi doonaan. waxa uu leeyahay ciidamadan waxay dabcan muhiimad siin doonaan inay difaacaan goobaha saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe ku yaala, laakiin horey bay Iiraan u sheegtay inay beegsan doonto xarumaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ee ku yaala gobolka iyo maraakiibtooda baddaasi maraya haddii ay dabcan ay soo galaan dagaalka oo ay isku dayaan in Israa'iil ay ka difaacaan duqeymahan ka imanaya dhinacan iyo sidoo kale Iiraan. arrimahaasi ayaa dabcan dhinacaasi ugu waaweynaa marka aad eegto xaaladda. sidoo kale warar kale oo maanta dabcan soo baxay oo barkadii ayaa sheegaya in qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada Jerusalem, Tel Aviv kadib markii duqeymaha Iiraan mar kale ay soo cusboonaadeen. warbixino ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in 20 daqiiqo ee la soo dhaafay ay muujiyeen qaraxyadaasi laga maqlay qaraxyadaasi Jerusalem iyo sidoo kale Tel Aviv, kuwaasoo ilaa hadda khasaarahoodii aan weli aan la sheegin. dhinaca kale waxaa la soo wariyey in bartamaha Israa'iil bas dabcan in uu dab xoogan uu qabsaday kadib markii Iiraan ay halkaasi duqeymahoodii ay ku socdeen. baskan ayaa la leeyahay dabcan waxaa gaaray dhaawac waa burbur xoogan. sidoo kale baskan oo ka koobnaa 8 dabaq oo waxaa la sheegay waa dhismo kale oo 8 dabaq ka kooban oo deegaanka Herzliya la yiraahdo oo Israa'iil ka tirsan in uu dabcan aad u burburay. baskaasi ilaa hadda wax khasaare ah lama soo sheegin. dab xoogan ayaa ka dhex kacay, waxaana la leeyahay dabkaasi ayaa keenay in darawalkii baskaasi waday inuu si degdeg ah uga cararo. dhinaca kale war kale oo degdeg ah oo hadda ka imanaya dhinacan iyo Israa'iil ayaa sheegaya in militariga Israa'iil ay sheegeen inay dileen madaxii xarunta dhexe ee magaalada Tehran ee dalkaasi Iiraan. xaruntan waxaa la yiraahdaa Qatam al-Anbiya, waa mid ka mid ah xarumaha difaaca ee dalkaasi. madaxii xaruntan ayaa waxaa la oran jiray Ali Shadmani. waxa ay Israa'iil sheegaysaa in ay ku dishay duqeyntii Tehran ka dhacday. ninkan ama sarkaalkan Shadmani la yiraahdo ayaa dabcan waxa uu ahaa sarkaalka ugu muhiimsan ee dhinaca ciidamada. nin khabiir ah ayuu ahaa. waxaa kaloo lagu sheegayaa inuu ahaa nin aad ugu dhow hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkan Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. ilaa hadda Iiraan war kama soo saarin, laakiin Shadmani ayaa waxaa dhowaan magacaabay Ayatollah Ali Khamenei markii la dilay hogaamiyihii xaruntaasi ee hore, ninkii dabcan halkan maamulayay Galman al-Shid ayaa la yiraahdaa. jimcihii ayaa duqeyn lagu dilay. marka Israa'iil waxay leedahay ninkan oo la magacaabay maalintii Sabtidii ayaanu duqeyn cusub aynu ku dilnay. inkastoo Iiraan weli aysan war ka soo saarin arrintan inay beeniso iyo dabcan inaysan weli aysan xaqiijin. sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si degdeg ah ugu noqday dalka Mareykanka isagoo dabcan ka tagay shirkii G7 oo looga hadli lahaa arrimaha ku saabsan Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil. waxaa la leeyahay arrintan waxay keentay markii Israa'iil ra'iisul wasaarahooda uu ku amray Trump inuu ka soo tago shirkaasi oo aan hal hadda diyaar loo ahayn. inkastoo hadda Trump uu leeyahay ugama soo tagin halkaasi arrimaha ku saabsan cadaadiskan ka yimid Netanyahu, laakiin waxa uu sheegayaa dabcan in uu uga soo tagay arrimo gaar ah oo uu dabcan faahfaahintooda uu sheegayo gadaal inuu ka bixin doono. haddii aynu ku sii soconno macluumaadka kale ee kooban ee dabcan ku saabsan guud ahaan dhinaca diblomaasiyadda iyo sirdoonka, madaxweynaha dalka Mareykanka iyo xogiyihiisa arrimaha dibadda ayaa ka soo tagay shirkii G7 maalin ka hor, waxaana aqalka cad uu ku sheegay in arrintan ay salka ku hayso arrimaha ka imanaya ama xaaladaha isbedbedelaya bariga dhexe. sidoo kale madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Mareykanka uu sameeyey ama uu soo bandhigay heshiis dabcan ama soo jeedin ama waxa loo yaqaano proposal ku aadan in arrintan Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan la xaliyo. warbaahinta ayaa xiganaysa aqalka cad ee Mareykanka
waxaana ay leeyihiin Trump iyo maamulkiisa arrimahaas ayay ka shaqaynayaan laakiin mar walba waxaa la leeyahay lama aamini karo Trump iyo maamul uu isagu uu dabcan uu hogaamiye u yahay dhinaca kale macluumaadka kale imaanaya Iiraan warbaahintoda waxay sheegayaan in nidaamkooda difaaca hawada dabcan ilaalinaya ama u xil saaran amniga xarunta nuclearka Natanz hadda si rasmi ah uu u howlgalay kuwaasoo dabcan difaacaya xarumaha muhiimka ah isla markaana bartamaha Iiraan xitaa nidaamkaasi difaaca ayaa mas'uul ka ah oo dabcan waardiyeynaya markii hore arrimahan waxay ku yimaadeen markii la soo dhexgalay sirdoonka iyo nidaamka difaaca hawada ee dalkan Iiraan taasoo khasaaro weyn dabcan dhinacan iyo Iiraan gaarsiisay waxaa kaloo war kale oo degdeg ah oo Iiraan ka imanaya ayaa waxa uu sheegayaa in laba ka mid ah shaqaalihii warbaahinta iyo telefishinka dowladda Iiraan ee ku taala Tehran shalay la duqeeyay inay geeriyoodeen warkan muusan soo bixin ilaa iyo maanta oo markii hore warka wuxuu joogay in duqeyntaasi dhacday telefishinkiina dib loo howlgeliyey haddana xaaladdu ay normal ku soo noqotay oo telefishinkaas uu bilaabay in uu wararka iyo macluumaadka dabcan u gudbiyo marka warkan kale ee maanta soo baxay isaguna waxa uu sheegayaa in la xaqiijiyey laba ka mid ah shaqaalihii telefishinkaasi in la dilay magacyadooda iyo sidoo kale xilalkii telefishinkaasi ay ka hayeen ilaa iyo hadda iyagana si rasmi ah looma sheegin dhinaca kale diblomaasiyadda haddii aan kusii soconno Shiinaha iyo koonfurta Korea ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay Israa'iil iyo Tehran iyo Israa'iil iyo Iiraan ay ka tagaan walow India iyana arday fara badan oo dabcan wadankaasi ku xayrnaa ka saaray shalay ilaa iyo maanta waxaana laga bixiyey xuduudda dalalkaasi sida Armenia oo dabcan loo sii gudbiyey diblomaasiyiinta Jerusalem iyo sidoo kale Tel Aviv ayaa laftirkooda waxay sheegayaan in safaaradahaasi markii hore Jerusalem safaaradaas bay ahayd in la xiray haddana safaaraddii diblomaasiyiintii Mareykanka Tel Aviv ku sugnaa ayaa iyaguna isu diyaarinaya inay halkaasi ka baxaan shalay safaaradda Mareykanka ee ku taala magaaladan Tel Aviv ayaa meel u dhow qaraxiyo madaafiicdii Iiraan ay ku dhaceen walow wax khasaare ah dabcan madaafiicdaasi in aysan geysanin xaaladahaasina halkaas ayay ka imanayaan oo sidaas ayaa uu yahay warbaahinta marka dalalka reer galbeedka bal iyaguna aan milicsano oo aynu eegno ilaa hadda waxa ay ka hadlayaan ee ku saabsan xaaladan bariga dhexe dhammaantood waxay dul istaagayaan oo ay ka hadlayaan duqeymihii labada dhinac ee xalay oo dabcan muujinaya sida ay u xooganaayeen iyo khasaarihii xaggan iyo Israa'iil dabcan gaaray iyo weliba Israa'iil oo soo saartay digniin ay ku leedahay 300 oo kun oo shacab ah oo degan Tehran meel ka mid ah in ay ka baxaan waa digniin ay Israa'iil soo saartay waxay tiri ma doonayno inaad halkaasi wax idinka soo gaaro waa inaad ka barakacdaan meelahaasi bartilmaameedka sawirro iyo weliba qariirado ay sheegayaan meesha ay tahay inay beegsanayaan ayay Israa'iil dabcan ay warbaahinta ay u soo gudbisay marka Israa'iil Iiraanna waxay tiri dabcan ma doonayno in ay arrimahaasi ay dadka shacabka ah ay dab u qaataan waa inay ka taxadaraan wararkan been abuurka ah ee ka imanaya warbaahinta iyo siyaasiyiinta Israa'iil dhinaca kale sawiradan iyo muuqaalo waa sawirro iyo muuqaalo iyagana ka imanaya dalkan Pakistan ayaa sheegaya in boqolaal ka mid ah askarta waddanka Pakistan ay ka tageen magaalada Tehran iyadoo duqeymaha xooggan weli ay socdaan 214 arday oo Tehran ka tagay ayaa xuduudda ka gudbay Pakistan iyagoo xuduudda la yiraahdo Taftan ka sii gudbaya Balochistan ay sii mareen axaddii isniintii shalay sida warbaahintu ay leeyihiin ugu dambeyntii waddankoodii ayay dabcan ay sii galeen waa waddankii labaad ee ardaydiisa kala baxaya waddanka Iiraan markii hore India ayaa samaysay haddana waa kan dalkan Pakistan isagana halkaasi ka saaraya dhammaan ardaydiisa arrimahan oo kale markay soo baxaan dabcan waxay muujinayaan xaaladdu in ay dabcan ay aad ay u sii xumaanayso oo markan ay joogto meel aan laga soo waaban karin oo ay adag tahay dabcan in labada dhinacba heshiisyada xabadujinta ay qaataan daawadayaal macluumaadkan ayaa ugu waaweynaa dhacdooyinka hadda ka taagan caalamka gaar ahaan bariga dhexe iyo sida ay siyaasiyiinta caalamka ay uga hadlayaan si aad u hesho macluumaadkan iyo kuwa kale fadlan subscribe saaro janalkan oo la soco aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin